moogtahay inay ku wan yihiin xayawaano aan u baahnayn lamaane si ay u tarmaan balse taas beddelkeeda waxay gaadheen isku filnaansho. Komodo dragon xayawaanka waxaa loo yaqaana mascagaley hadduusan lab jirin taasi dhib ma laha. dhediga mascagalaydu waxay awoodaan inay tarmaan iyagoo aan u baahnayn lab. tan waxaa lagu magacaaba pathogenesis taasoo yahay macnaheedu inay si toosa u sameynayaan ilmo iyagoo aan u baahnayn lamaane, waxayna nuqul amba koobi ka sameynayaan naftooda. iyaga ayaana hooyo iyo aabbo labadaba noqonaya. soo layaab maaha daawade. 2 clownfish kalluunkan waa mid ka duwan dhammaan kalluunada kale ee aad hore u aragtay daawade. kalluunkan labkiisu wuxuu noqon karaa dhedig. dhammaan kalluunkan waa wada lab marka ay dhashaan, laakiin haddii tan ugu weyn ee dhedig ay dhimato, midka lab ee ugu weyn markaas ayaa si fudud iskugu beddelaya dhedig, wuxuuna noqonayaa hogaamiyaha cusub ee dhediga, waxaana loo yaqaanaa jinsi beddelasho. wax muran ahnina ma jiro, bay-aduna si caadi ah bay u shaqaynaysaa oo ugu noolaanaya, waana abuurka ilaahay. 3 webtail lizard waa nooc ka mid a xamaaratada. noolahani gebi ahaanba waa dhedig, mana laha wax laba, waxayna ku tarmaan iyaga oo si iskooda isku kuwabigaraynaya, laakiin si ay ukunta u dhigaan waxay muujiyaan dhaqdhaqaaq la mid ah midka kulanka lamaanaha si jirkooda uu dareemo kicitaan keenaya in ukunta la dhigo. waana arrin la yaab leh balse dabiiciya daawade. haddaba daawade, adiga su-aal haddii aan ku weydiiyo, midkii ayaa xoog kaaga yaabiyey? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube-ka iyo facebook-ka profile-ka saaranna aad subscribe dhaado.